xukuumaddiisana xuraysay aan xilka siino. Cabdiweli Maxamed Cali waa aqoon-yahan rugcada siyaasi dhaxalgal ah dalkeena ku xureeyay muddo sanad ah hadii aan sanado siino muxuu qaban karaa. Cabdiweli habeen iyo maalin wuxuu nagu waaniyaa nagu soo jeediyaa naguna amraa sida wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed ugu shaqeynayno inaan yoolkeeda guusha iyo nabadgelyada ay harsato mustaqbalka. wuxuu nagu adkeeyaa Soomaaliya inay ka baxdo dhibaatada oo dastuurka aad si fiican oo wanaagsan aad u ansixisaan wixii turxaanana aad ka bixisaan wixii wanaagsanna ummadda aad u soo bandhigtaan laana ummaddu waxay u baahan tahay dawlad muddo dheer bay dawladda ayda burbur ku jirtay. Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saaxadda siyaasadda waxa uu ku soo biiray sanadda 2010 xilligaas oo uu ka mid noqday liiska golaha wasiirada xukuumadda Farmaajo waqtigaas oo loo magacaabay wasiirka qorsheynta ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaana uu dejiyay nidaamkii ay ku howlgali jirtay xukuumadda Tayo ee uu Farmaajo ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa. arrintaasi ayaana waxay keentay kadib in meesha marka uu ka baxay Farmaajo in looga maarmi waayay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. xukuumadda badbaado oo uu horboodayo Dr. Cabdiweli Maxamed Cali waxay waxyaabo badan ay ka qabatay xoreynta gobollo badan oo dalkeena ka mid ah. dib u heshiisiinta iyo maamulada kale ee dalka ka jira in sanado badan kadib indhaha caalamka lagu soo jeediyo Soomaaliya dhisida moralka ciidamada iyo qalabeyntooda la dagaalamada kala saaran cadawga waa guureysateen yar baadiman intaasna walqamiisu badan hadii la yiraahdo marka sida uu tariiq sheegay waxa weeye galin fiican saaxan weeye Soomaaliya baad fiirsanaysa Soomaaliya maanta dibulka Soomaaliya qaranimada iyo sharafteeda qadiyada waxa ku xiran tahay idinka iyo dagaalkeena. dawladda Dr. Gaas waxay dhaxda kaga dhacday musuqmaasuq curiyaamiyay hay'adaha dawladda dib u dhiska caasimadda dalka ee Muqdisho shirarka Soomaalida ee dalka dibadiisa lagu qaban jiray oo dalka gudihiisa lagu qabtay diyaarinta dastuur dalku uu yeesho muddo dhowr iyo 20 sano kadib haddaba codkaaga si Dr. Cabdiweli Maxamed Cali oo muddo sanad ah dalka ku xureeyay xukuumaddiisana xuraysay aan xilka siino.